wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdulaahi oo kana mid ah gudida ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxa uu sheegay in hay'adda WHO ay ku wareejisay mashiinka shaybaarka caabuqa coronavirus ee lagu eegi karo halkii saacadood 40 wadamada saaxiibanahay waxaanu ka helay agab caafimaad isla maanta hadda waxaan la soo wareegnay oo hay'adda WHO ka la soo wareegnay PCR-kii waa mashiinkii lagu baarayay xanuunka oo wada weydeen dhibaato waxayna haysatay xagga shaybaarka oo waxaanu ku qasbanayn qofka inuu ku hubino shaybaarka dhaqsaha ahaa oo kalsoonidiisu aan 100% adduunka dhan ba ahayn inaynu si aynu u hubino u dirno Kenya oo maalmo ku maqnaado oo taasi ay culays nagu hayd laakiin waxaan isku soo afkarnay hay'adii mashiin qalabkiina way keeneen tababarkiina wuxuu bilaamayaa labada cisho soo socda oo qof khabiir Itoobiya laga keenaya waxaanu filaynaa insha Allah ta'ala week kadib mashiinkaasi awood wuxuu leeyahay inuu saacadii lagu eego 40 qof macnaheedu hadduu shaqeeyo 12 saacadood waa ilaa 500 qof wax ku dhow ayuu 12 saacadood lagu eegi karaa taasi waxay keeni kartaa in talaabooyinka ay ku talinayso hay'adda caafimaadka adduunka oo in dadka la shaybaar laga qaado qofkii laga shakiyaba cidii uu la kulmayna la daba socdo oo la soo helo cidii xanuunka uu soo dhacdana la daweeyo taladaas aanu qaadanay laakiin marka hore kala weyn kala dhinay oo weyn kala dhantaaleyn sidoo kale waxaan mahad celinaynaa dawladda Imaaraadku iyaguna qalabka kulamida ayaa ay keeneen qaybtiisii hore qaybta dambe oo imanaysa taa macnaheedu qarankeenu wuxuu yeelanayaa awood inuu ka maarmo inaynu ku tiirsanaano shaybaadho dibadda inaga lafteena cidii u baahanayno inaynu ka caawino oo runtii inay hubiso inuu ka caawin doonaa حمزة أحمد سليمان حمزة دبارة تلفزيون كعالمي Star TV عاصمة الصومالي لأن هرقيسة